baan qaaday lawyer baan u geeyay lawyerkayga guryahooda ayagoo jooga macnaha kulley inay gaartay waan qiyaasayaa laakiin hadday gaarto inay soo jawaabaan way hadday soo jawaabi waayaan waraaq kalaa loo dirayaa lawyerku shaqadiisa waa soconaysa ma fahanti laakiin labadaba waa dacweeyey sababtoo ah yurub qof uma hanjabi kartid waa ku dilayaa ma dhihi karto qof sharciga ka yaal yurub waa saas cabdullaahi booska finland buu joogaa meel waxba iima jiro waa scandinavian baa iskuna daar calisow sidoo kale ma laysu hanjabi karo waddankan adoo qofka dilay lamidta adoo qofka dilay bay lamidta ma fahantid marka hadda waxaan leedahay marka aniga lawyer baa ii shaqaynaya dacwo ku socotaba lawyer baa aniga ii shaqaynaya dacwaduna waa ii socotaa waqtigay rabtaa qaadato laakiin cirka inaan ula baxaan rabaa labadaba aniga hadda meesha aan dhex taaganahay runtii waxaa u badan weliba xoogaa Soomaali dukaamada Soomaalida safari shop baa la yiraahdaa Soomaali dhan way joogtaa baakiga aan taaganahay magaalada bartankeeda wey cid wax iga qaadi karta oon ilaahay ka ahayn ma jirto laakiin dadkii yiri waxbaan dilaynaa baan ku yiri afkooda soo marsiiyey kiiskoodii iyo dacwadoodu waa ii socotaa mukhtaar waxaad isku qabtaa kalsoonidii abid qof isku qabay midda ugu badneyd waxaad dhex taagantaa bartankii magaalada Copenhagen khaasatan xaafadii Soomaalida dhexdeeda dukaamadii meeshii shaarica laga adeeganaya dhexdeeda waxaan ku weydiinayaa waxay tahay hal su'aal oo ah ma waxaad leedahay aniga waxaan ahay shakhsi isku kalsoon cidna aysan waxba yeeli karin shaatigiisa cad yahay banaankaas taaganaa leedahay sidaasaa taagan tahay waxaan taaganahay ilaahay mooye qof bili aadan is waxba iga qaadi karin oon isku kalsoonahay ma fahanti nin baa waxaa la yidhi hadda ka hor ma magacaabayo nin baa waxaa la yidhi weyn oo xoogaa wax si ka yihiin baa cunug yar u yimid baa la yidhi inaan magacaabo ma rabee waa garta cunug yarkaa feer ku dhuftay war hebelow ninkii maa iska celisid baa la yidhi wuxuu yidhi wadnaa diiday buu yidhi wadna yaa diiday buu yidhi marka anigu waxaan ka soo jeedaa adeer dadka aan gabban baan ka soo jeedaa dadka aan gabban ee 21 sano waddanka ka talinayay iyo 5 sano 26 sano dadkii waddanka ka talinayay ee hadday hadlayaanna aan hanjabin aan kaftamin waxay ku hadlaanna ka dhabeeya oo go'aankooda cad yahay baan ka soo jeedaa ma fahanti qabiilooyinka Soomaaliya markii la yiraahdo maanta adeer qabiilka ugu laandheeraysan baan ka soo jeedaa oo aan kaftamin ma fahanti ee kalsooni isku qaba ee banaanka degan baan ku yiri laandheere banaanka degan ah ma fahanti ee loo shaqayn jiray waliba ugu daray intaasne loo shaqayn jiray waa gartay bal waxaad iga warrantaa marka sidaa daraadeed kalsooni baan isku qabaa wiilasha yararka ee meelahan Finland iyo Netherland daraagiska jiidaya Netherland waa golihii daraagiska soo moogid Holland waxa ka dambeeya daar calanka soo ilkaas waa daraagis waay ee daraagiska jiidaya waxaan leeyahay waa hanjabteen laakiin jawaabtiina waa helaysaan waxa ku soo haray war ninkii waddanka degan ee sharci ku leh ama ha la xiro ama xabsaa soo maro ama ha dagaalame haba hanjababa laakiin waxaa igu daran wiilka yarka ee cabdullaahi diifle cabdullaahi diifle sweden buu dhex degan yahay sharcina kuma leh sweden talyaanigu ka dhiibnaa maaqa hadda sweden iska dhiibee baan u malaynayaa baasboor talyaani haystaa sweden oo degan yahay baasboor weyn ma haysto yurub buu imaan lahaa uuna shaqaysan lahaa baasboor weyn hadduu haysto laakiin waxaa dhici karta baasboorka yar ee talyaanigu haystaa lafta iyo haystaa talyaaniga sweden sidaas ku jooga hameenba ninka aad arkaysid ee caayahaya maalin 24 saac daarood ama dadka u soo hanjabaya 24 saac hameenba gurigu seexdaa sababtoo ah nolol kuma haysto qof waddankii degan oo ka shaqaysanaya maaha talyaanigana waxa weeye nolol iyo shaqo ma taalo maaqa majaarid buu noqonayaa dumarka baa ka shaqayn kara talyaaniga ma fahamtay marka ninku waxa uu hanjabo oo ha u dhaarto laakiin waxa fiican
asaga inuu isdayactira marka hore dayactira asagu isku sameeyo markaa kadib uu cid u hanjabo cabdullaahi diifle ma fahanta daraad waxaan arkaya isagoo mareexaan oo dhan caaya qabiil dhan isagoo caayaya soo axbaati maaha runtii inaan u jawaabo ma rabin sababtoo ah agtayda wuxuu ka yahay waxba yahay qofka markaad u jawaabto waxbaad ka dhigta soo ma ogid horta laakiin ninka iigu fudud oo sida ilaahay iga adag yaa kaga adkay